aad baan idiin salaamaya Ramadaan Kariim caawa warkaygu waa xadiis ama sheer gare ama sheer garayn ama xanaaq ama xanaaqin waxa weeye yaraasu gidhay bay taro kale Itoobiyaanku yaraasu gidhay bay dhahan waxa weeye Cabdimaalik Muuse Coldoon dawladdii hore tiraba 3 dhowr jeer bay xidhay kulliga waynu qaylina waxaynu nidhi Muuse Biixi dadku xidhaya Muuse Biixi dadku xidhaya Muuse Biixi dadkii afku xidhay dadkii waa wada xidhan yihiin qofkii hadlaba Muuse Biixi uu xidhaya kulliga waynu qaylina dawladdii cusbayd ee labada bilood hadda joogtay leed casbay ku raadinaysa bal Cabdimaalik Muuse Coldoon maxaa ka maqan bal muxuu doonayaa Ilaahay baan idinku dhaarshay maxaa ka maqan uu doonayaa bal aniga midka ii sheega war ma wasiir baa ma taliya ma dawladdu wax ka yahay miyaanu nin shacab ahayn bal waxaan leedka ku xidhay ee uu doonayaa Ilaahay baan idinku dhaarshay ee dawladdan cusub imika u raadinaysa waa maxay ninkani mabaadi uu wato ayaa Somaliland ugu suurta gali waayay talaabadu qaadaba waa la socdaa halku istaagaba waa la socdaa uu cabursan yahay cabursanaantu maaha xumaan la xumaynayo ee balaayo kale uu doonayaa wax kala uu ninkana ku socdaa meel kale uu ninkana ku socdaa waduu hayaa ninkana haddaanu wada haynin intii jeera la xidhayba hooyadii jeelkay soo hor istaagtay waynu wada ogeyn jeelkay ka barooranaysa 200 oo fiidiyowba hooyadii laga soo duubay iyadoo ooyeysa waa loo soo daayay haddana sidii si leeg dambi buu galay waa la xidha haddana hooyadii bartii bay ka ooyday waa loo soo daayay sheekhnimadan iyo caawintan uu leeyahay dad baan caawiyaa muxuu hooyadii ilmadeeda ku falaya ummadda Ilaahayna waan caawinayaa hooyadayna waan kaga oohinayaa kitaabka halkay kaga qoran tahay aniga caaway sheega bal maalin walba hooyadii buu kaga oohinayaa jeel dul taagan ilma yar maaha waa 50 jir ama waa 60 jir bal maxaa ka maqan hooyadii uga oohinaya niyawiyaynaan aqliga kaashaba leeyid ninkan waxa ka maqan ee uu doonayo hala sheego dadkan caawiya ummadda Ilaahayba dadka waa caawisa ummadda Ilaahayba ilaa yaxaawiya aadan baa la caawinayo ummadda caawinaysa maxaa marka caawimadu maxay tahay soo imsa qof baa habeenkii TikTok lagu caawiya oo dhalinyaro aan 20 gaadhin caawisa oo koto $1,000 lagu dhuftaa imsa qof caawimannimadan uu ninkani ku soo dhuumanayo ninkani mabaadi buu wataa wax kale uu aaminsan yahay wixii kalena Somaliland way ka socon waayeen halku ku kaajo habeenkii waa loog yahay halku shaaha ka cabo waa loog yahay dukaanku wax kaga shubto waa loog yahay lambarka soo garaacaya waa loog yahay dabagal inaba aan caadi ahayn baa lagu qabta caawa qoraal buu soo qoray bartiisa Facebook uu leeyahay burcawaan ka baxsada waxaan joogaa muu magacaabin meesha waxaan joogaa meel hee aan xasilooni ku dareemayo maxaa lagu eriyanayaa waayi bal waxaan lagu eriyanayo waa maxay niyawiyeena aqliyadan wax kala soo sheekayne xaqiiqada iyo runta ma soo sheegnaa ninkaasi soo bil kuma jirno soo bil Ramadaan maaha soo 17 Ramadaan kama harsan bilaha soo socdaayno eegno aadna waa idin salaamaya khayrna waa idin rajeynaya Herbal Shop hoyga daaweynta natural dabiiciga ka xaqabtira horu gaar maxmil ma ku daashadin la faxanuun habeen iyo maalin ma ka haysataa hool dhig xirista ma soo xambaabirta habeenada qaar hurdo la'aan ma hiftaa naftaada madax xanuun ma haleeli weydi suuliga calool istaag daraadi ma isku ka haystaan warwarka iyo stresska hadday jawaabtu haa tahay haddeer soo tiigso saacadiyo xirsi Herbal Shop waxaad ka helaysaa dhammaan dawooyin natural kugu habboon kor u bila heerka caafimaadka noloshaada hadal yar iyo howl badan soo dhaweyn hagarley ugu kaale
sacdiyo hirsi herbal shop wixii faahfaahin intaasi dheer kala xidhiir taleefanada shaashada hortaada ka muuqda